madaxeygii dabadeedna ciyaalkii uu hagsiiyey anna way iga tagay arrinkii waan ka xumaaday markaan ku yidhi saa maxaad igu gashina wuxuu yidhi ceeb weeye meelahaasoo kale la iskuma maaragtay salaamo anna aad baan uga xumaaday bay tiri aniga laftigayga ii sheegtay waxaan ku yidhi wuu kaa khaldan yahay marka sheekh waa intaa طيب سؤال حكته فضلا عيالك يو دائر تهلا مسيو عيالك يو دائر تهلا مسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقة ودن كان جوجنا كينيا نيروبي وحنا شقينا أفكار صار ميكروفون waxaan noo shaqeeya naaga madow ah oo muslim ahayn naagahaas guryaha inoo tirtiraan dharka inoo dhaqaan annagana dad muslim ahaan nahoo tukado dharka ay dhaqaan dadkaas ma daahiriyaan dahaarana waxba kama yaqaanaan dharka ciyaalkana way ku dhex dhaqaan dharkaas salaada lagu tukaday maxaa laga leeyahay جزاك الله خير الجزاء موسى خير موسى هذا هالليسان كما جوابي سؤالها هذا ربطان إن سؤالها يدين كجوابه دقيست وآموسى هذيك ليتو waxa laga jawaabay idinkuna kama faa'iideysaan aniguna bilaash baan isaga hadlayaa marka dhageysta su'aalaha oo sheekada iyo hadalka daaya su'aasha aniga oo under age salaadihii iga tagay ma la igu leeyahay under age ka waxa la yiraahdo laba macno leeyahay mid waxa weeyaan ruuxu inuusan qaan gaadhin waxyaabaha lagu qaan gaadhana waa la yaqaanaa rag iyo dumarba haddii ruuxu qaangaadhkii shareecadu ay sheegtay uusan weli gaadhin wixii cibaadaadee ka taga laguma laha haddiise laakiin uu qaan gaadhay laakiin age-ka ay gaaladu taqaano uu ka hooseeyo 18 bay gaaladu u yaqaanaan under age wixii ka yar bay u yaqaanaan 18 shareecada laguma qaangaadho 17 laguma qaangaadho haddii ayna gabadhu caadada helin rag iyo dumarka ayna mani ka imaanin da'da ay ku qaangaadhaan waa 15 waay 15 ka hor haddii calaamaadkii kale qaangaadhka uu ruuxu helo uu qaangaadhay waajibaadkiina waa lagu leeyahay cibaadaadkii hadduu ka tagana waa dushiisay saaran tahay haddiise laakiin uu ka yar yahay qaangaadhkii gabadhii weli caadadii kuma dhicin manidii kama imaanin oo biyihii iskumayna arkin mayna gaadhin 15 sano haddayna qaangaadhin sidaa cibaadadii kaga tagtay wakhtigaa isagaa laguma laha leanna qalinba ma saara ruuxa intuusan qaangaadhin laakiin inta uu ruuxu yar yahay uusan qaan gaadhin cibaadada lagu sii tababarayaa carruurta iyagoo 7 jir salaada la farayaa 10 jir markay gaaraan ku garaaca buu nabigu sallallahu alayhi wasallam macnaheedu ma aha inay waajib ku tahay ee waa loo sii tababarayaa inay sii bartaan oo la sii qabsadaan marka ruuxu hadduusan qaan gaadhin waajib kuma aha wixii ka tagana laazima inuu soo celiyo qaan gaadhkan ka hadlaynana waa ka shareecada waay su-aasha xigta meher xadka shareecada khalad buu ku yahay meher xadku guur ma aha maxaa yeelay guurka qarsoon culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inuu uusan saxsanayn nabigeennuna wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam haweenay kasta oo guursata weli la'aan guurkeeda waxba kama jiro guur marka la qarsanayo
oo weligii laga qarsanayo oo qaraabadii laga qarsanayo oo lala dhuumanayo waa xatooyo waay tuugnimo waay wax tuugnimo ku yimidna shareecadu ma asixiso saxna ma aha arrintaas soomaalida dhaqanka u ah ee ku badan wax shareecadeennu ogoshahay ma aha waxaa kaleeto shareecada khilaafsan waxa la yidhaahdo guurka masaafada oo gabadha meeshii ay joogtay inta laga kaxeeyo magaalo kale la geeyo lagu soo meheriyo iyadana sax ma aha labaduba shareecada way khilaafsan yihiin guurka saxda ah ee qur-aanku sheegay sunnada nebiguna sheegtay sal alla alay wasalam waxa weeye in gabadha ehelkeeda laga doono oo weligeedu bixiyo oo weligeedu guuriyo oo iyadii ninkay guursanaya raalli isku noqdaan oo isku qancaan oo markhaatiyo loo sameeyo oo guur la og yahay oo cad uu noqdo kaasaa guurka saxda ah hadday dhacdo marka oo khaladkaasi dhaco oo ay isugu galmoodaan oo uur yimaado maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa guurku waa khalad ilmuhuse waa sax guurka waa la saxayaa oo guur saxsan ma aha laakiin ilmaha lama dhahayo waa garac lama dhahayo ilmaha waa ilmo saxa leanna ilmuhu sidiisaba wuxuu sax ku noqdaa labada ruuxee isu galmoonaya hadday rumaysan yihiin inay xalaal isugu garmoonayaan intaasaa ilmaha nasabka siinaysa oo ilmuhu uu ku qaadanayaa nasabka aabbihii laakiin labada ruux waxa dhex yaallay isku arkeenee isugu galmoodeenee ku wada seexdeenee guur saxa maaha guurka waa la burinayaa hadday rabaanna dib baa laysugu guurinayaa ilmuhuna aabbihii buu ku abtirsanayaa oo ilmo saxa buu noqonayaa masaladaasi sidaas waay su-aasha xigta oo ah hooyada wadaadkeedii eerbood kaga hor tagtay iyadii carruurtii oo uu carruurtiina dhunkaday ayadiina uu dhunkan waayey kadibna ka xumaatay waxaan dhihi lahaa inaad ka xumaato sax maaha xumaynna ma aha kumuusa xumaynin laakiin maxsharkaasi meesha la wada taagan yahay ee dadku idin wara arkayaan ayuu ka xishooday inuu kugu dhunkado marka xishoodkuna diintuu ka mid yahay alxayaa min aliimaan buu nebigu sal alla alay wasalam xishoodku iimaankuu ka mid yahay ruuxaan xishood lahayna diin ma laha marka wadaadku kuma xumaynin kumana necba adaa iska dhaadhiciyey laakiin wuxuu ka xishooday inuu meeshaa kugu dhunkado waxaanan u malaynayaa guriga markaad tagteen inuu kuu qalleeyey oo uu kuu guday oo waxaad ka rabtay inaad ka heshay baan u malaynayaa haddii aadan adugu xanaaqii kula tegin marka arrintaasi waa arrin saxa waaye waxaad iska dhaadhicisayna sax ma aha sidaasaana munaasib ah nebigeennu sala allahu calayh waalihi wasalam isagoo xaasaskiisa jecel haddana meelaha maxsharkee dadku wada joogaan kuma dhunkan jirin xaasaskiisa wuxuuse ku dhunkan jiray siday ummahaatulmu'miniin soo warinayaan guryahooda markuu la jooguu nebigu dhunkan jiray sal alla alayh wasalam marka arrintaasi odaygaagu sameeyey waa sax xumaanna ma aha xumaynna ma aha laakiin waxaa keenaya xishoodkaa keenaya xishoodkuna iimaankuu ka mid yahay su-aasha xigtaa u dambaysa waxa weeyaan dumarka guryaha ka shaqeeya ee weelashay dhaqaan iyo dharka ay dhaqaan ma daahirba jawaabtu waa haa haddii adiga aadan nijaaso ku ogayn jidhkooda asalku waa inuu daahir yahay qur-aanka kariimkuna markuu inoo sheegay innama almushrikuuna najas gaaladu waa nijaaso markuu ina yidhi nijaasada waxaa laga wadaa bimacnaa caqiidadoodaa nijaaso ah laakiin jidhkooda iyo maryahooda asal ahaan waa inuu daahir yahay wixii aan nijaaso lagu ogayn ayagoo sidaasa oo aan iska dhaqin ayaa nebigu la mucaamaloon jiray sal alla alay wasalam oo bulshada muslimku la mucaamaloon jirtay oo weelashooda la isticmaali jiray oo dharkooda la isticmaali jiray waana meelaha bini aadamka shakiga iyo waswaasku ka soo galo waaye shareecadeennu waxay ku leedahay waxaad hubto ood arkaysay oo nijaaso ah adiga wax ku qaybso wixii aadan hubin way isku xaartaa iyo way isku kaadidaa iyo kaayada iskama dhaqda iyo hawl kuu taalla ma ah adiga hawl kuu taalla ma ah midda labaad maryaha laysku dhaqayo oo carruurtii maryahoodii
iyo dadka maryahoodii baa la ysku dhaqayaa haddii la dhaqayso daahir ma wada noqonin biyahan la wada geliye lagu wada dhaqay xataa hadday qaar nijaaso yihiin soo islama daahir noqonin marka maryaa la ysku dhaqay oo qaarna nijaaso yihiin oo carruurtu leeyihiin qaarna ay dad waaweyn leeyihiin wax mushkilaa ma laha wax mushkilaa ma laha leanna biyaha la geliyey way dhaqeen haddana biyaha laga raaciyey way daahiriyeen dharku marka daahir waaye weelashay dhaqeen daahir waaye ayaga wixii nijaaso eed ku aragta gacmahooda ama jidhkooda saaran unbaa la dhahayaa waa nijaaso laakiin iyaga lafahaantooduna nijaaso ma aha dharkooduna nijaaso ma aha waxay dhaqaan nijaaso ma aha waxay daahiriyaanna waa daahir in sha allahu tacaala wallahu aclam haddana 3 su'aaloo kale oo xigta ayaanu israacinaynaa mikrofoonka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan waxay daba socotaa su'aashii hore oo ahayd dumarka guryaha ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa guryaheena inay ka shaqeynayaan dumar aan muslim ahayn isla markaasna qoorteennii iyo madaxeennii ay arkayaan balse qaarkeen waxaa laga yaabaa koofeerada markaanu tagno inay timaha noo hagaajiyaan ama masaajkan waxa la yiraahdo ama riixriixa oo kale ay noo sameeyaan marka taas maxay diinteenu ka qabtaa midda koowaad su'aasha labaad dumarka codkoodu macawra markaan leeyahay inay qaylinays kaliya ma aha sida muxaadaraadka oo laga yaabo iyo barnaamijyada ay dumarka sameynayaan inay dumarkii kaliya aysan fiirsaninoo ama YouTube ama Snapchat ama TikTok la geliyo marka waxaan rabaa sheekh labadaas su'aalood jazakallahu khayran salaamu alaykum barakallahu fiikum. su'aasha kale سؤال كله فضلا سؤال كله طيب شيخ مسألة كوسابسن dumarka gaalada gabadha muslimadda jirkeeda maxay arki karaan maxayse taaban karaan waa mas'ala khilaaf laba meelood oo quraanka ka mida ayaa waxaa ku soo aroortay markii laga hadlayay dumarka ragga aynan ka qarsanaynin jirkooda qaybaha loogu talagalay ee maxramka u ah markii laga hadlayay ayaa waxaa lagu daray aw nisaa'ihinna dumarkooda la yidhi halkaasaa culimmada qaar waxay ka fahmeen dumarka muslimaadka ah yaan cawrada laga qarsanaynin laakiin dumarka gaalada ah ayaa aayadda laga fahmayaa in ay tahay sida ragga ajnabiga oo kale in cawrada laga qarsado culimmada qaar baa ka fahmay aayaddaa culimmada qaar ka midana macnaheeda si kaley u fahmeen masaladu marka waa masale khilaafiya laba gooraba gabadha muslimadda ah jidhkeeda qaybaha sida qaalibka aan banaanaanin gurigeeda markay joogto sida qaalibka ah qaybta aynan bannaynin gurigeeda markay joogto dumarka gaalada inay u bannayso ma aha oo maalan muxuu ahaayey guriga marka la joogo sida qaalibka ah luqunta iyo timaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo way iska bannaanaadaan laakiin qaybaha kale jidhka daakhilka gudaha ah inay naag gaal ah ay u muujiso ama meel dumarku isku qurxiyaan ha joogto ama meelaha masaajka ha joogto ama gurigaagaba ha kula joogto inaad u muujiso sax ma aha maxaa yeelay waa gaalo waxba kama dhowrsoona diini ma celinayso akhlaaqi ma celinayso inay jidhkaagii sifayso waa kii nabigeennu laha sal alla alay wasalam haweenayda muslimadda mid muslimadoo kale yayna la baashirin oo yayna fiirinin si ay jidhkeeda ugu sifayso ninkeeda ama rag kaloo ajnabiga ugu sifayso
marka maadaama ay gaalo yihiin jidhkaaga inta aad qaybihiisa gaar ahaan inta badan asturan inaad ka ilaashato ood ka asturato xataa guriga hadday kula joogto ayaa fiican oo runtii ay ku jirtaa tacaala mikrofoonka wareejin doona gabdhaha marka gabadha mikrofoonka markay kuu keento nus daqiiqo wax ka yar ayaad haysataa si aad uga jawaabto nus daqiiqada haddii ay dhaafto waa lagaa wareejinayaa insha allahu tacaala qofka waa inuu istaago qofka su-aasha weydiinaya waa inuu istaago nus daqiiqo wax ka yar qofkii su-aashiisa ku dhammaysan waaye waa laga joojinayaa marka waxaan guda gelaynaa su-aasha koowaad haye u dhiiba gabadha istaag markan ayib haye su-aal weydii عليكم وحرر الشيخ إن لو سؤال ودي أولا شيخ الدعاء كعصنينا ثانيا وحاجر تجور ولا شيء عذرك وسوس كل دقات وقبطه هير هذا وحي جارتي طبنان كهدي أدو يقول جيدو كصلابتين يخبيسته مركو وحيت كدعاء كلا هذا جور وحوم مقبن كرا أو المه ما هيسن كرا انتظر مكان كرا وسوس كي وزائد كنا قضي مركو شيخ سؤال شو ويدنا يا inuu noo duceeyana waan rabaa oo noogu duceeyay heer waxay gaartaa hadda markay dahaarada oo kale tay qaadanayso markasta qaarka dambe dhaqaysaa markay heer waxay gaartaa hadda lugaha jilbaha laga haayo ee istaagi karin marka sheekh ducana waan ku codsanaynaa su'aashan weydiinaya jazakallahu khayr تفضل شيخ بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد aamuusa horta hadalka yareeya oo wax dhagaysta haddaad sheekaynaysaan ama adigii baa faa'iido isseejinaya ama dadkaas seejinaysaa marka halays dhagaysto su-aasha haddaan ka jawaabo horta midda ducada ilaahay inta jiranba ha caafiyo gabadhaana si gooniya ilaahay waswaaska iyo shaydaanka sharkiisa iyo cudurrada allaha ka ilaaliyo allahna xifdiyo arrinta xigta masalada ku saabsan waswaaska waa cudur shaydaanka ka yimaada oo dhinacyo kala gedisan iyo meelo kala gedisan ayuu galaa mar ruuxa wuxuu ka galaa caqiidada mar wuxuu ka galaa dahaarada mar wuxuu ka galaa cibaadada iyo salaada mar wuxuu ka galaa guriga iyo gogosha waa kolba meel buu ka galaa nabigeennu sal alla alayh wasalam wuxuu ku daaweeyey warka uu shaydaanku kuu sheegayo ha rumaysanin markuu ku leeyahay waxbaa kaa khaldan ha isdhihin waxbaa khaldan ee sax warkiisa beeni haddaad istidhaahdo wixii uu kuu sheegay waa jiraaye sax haddaad istidhaahdo waa siduu rabay waswaaskuna waa kugu sii siyaadayaa marka horta warkiisa beeni oo go'aan qaado oo waswaaska haysa sii raacinin marka labaad waxaad hubto waxaan ahayn waxba ha ku qaybsanin yaqiinta raac wixii shaki kaa galo waxba ha ka soo qaadin haddii waysada shaki kaa galo waysadaadu way jirtaa haddii shay inuu daahir yahay shaki kaa galo waa daahir haddii salaadaadii inay asaxday shaki kaa galo way asaxday haba yaraatee wax shakiya waxba ha ku dhisin shakina ha raacin wixii aada hubto keliyata ee wax ku qaybso midda saddexaad ilaahay magan gal oo shaydaan baa keena ka xirsi xidho adkaarta iyo qur-aanka shayaadiinta lagaga xirsi xidho iyadana badso in sha allahu tacaala sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay waimaa yansagannaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllaah haddii uu shaydaanka ku fasaadiyo ama ku waswaasiyo ilaahay magan gal ilaahay baa marka la magan galaa shaydaanka iyo sharkiisa ilaahay ka magan gal adkaarta iyo xirsi xidhka ku dadaal warkiisana ha rumaysanin oo intaad rumaysato wax sax ha isdhihin
warkiisa beeni intaa haddaad samayso insha allah waad ka caafimaadi biidn illahi tabaaraka wa tacaala. wassalaamu calaykum waraxmat ullah. nacam, su-aasha xigta. السلام عليكم. waxaan rabi lahaa in la iiga jawaabo su-aal ah. بسم الله الرحمن الرحيم. nin baa wuxuu guursaday gabar 1992 markii uu guursaday meherkeedu wuxuu ahaa lacag 3,000 oo Kenya money ah. hadda waxay kala tageen sanad ka hor oo waqtigooda uu kala dhamaaday, wuxuuna siiyey meherkeedii lacag $30 ah. shareecada islaamku maxay ka qabtaa؟ جزاك الله خير الجزاء. شيخنا تفضل. lacagaha la isticmaalo haddii qiimahoodu dhaco oo qiimahoodu ay suuqa waxay ka gooyaan uu aad u dhaco, lacagtii wax lagu kala iibsaday ama deynta laysku lahaa ama meherkii laysku lahaa intiisii ma ahaanayo. waxaa la aadayaa lacagtaasi xilligii la wada galay ama gabadha guurkeedu dhacay waxay suuqa ka goyn jirtay baa la fiirinaya. 3,000 shilin maxay waagaa dahab goyn jirtay? 3,000 shilin maxay dollar waagaa ku ahayd? waxaasaa la aadaya. kadibna dahabkii waagaa ay goyn jirtay ayaa hadda suuqa laga qiimaynaya. wuxuu qiimaha uu noqdo ayaa la siinaya. sida lacagaha Soomaalida, lacagaha Kenya 1992 hadda farqi weyn baa u dhaxeeya. sidaas daraaddeed lacagtii ahayd 3,000 meherka laguma gudayo ee meherka waxaa lagu gudayaa 3,000 waagaa maxay suuqa ka goyn jirtay. waxyaalaha aan isbedelin sida dahabkoo kale, doolarkoo kale, xoolaha nool oo kale baa lagu qiimaynayaa. haddii la yidhaahdo marka waqtigaas 92 $3,000 waxay goyn jirtay kaba soo qaad 10 giraam oo dahaba. hadda 10 giraam oo dahaba suuqa waxay ka joogto baa gabadha meherka diraya. 3,000 ee waqtigaa ahayd waxba lagu xisaabin maayo. laana muhiimaddu waxa weeyaan lacagahani qiimo waxay ku leeyihiin waxay suuqa ka gooyaan. iyaga la faahantooda qiimo ma laha, laakiin qiimahoodu waa awoodda suuqa ay ku leeyihiin waaye. taasaa marka loo celinayaa. wallahu aclam. sheekh waxaan ku weydiin meeshan oo garka hoostiisa ilaa dhuunta meesha u dhaxayso ma waxaa la asturaa waajib, yacni salaada markii la dukanayo bas miyaa waajib ah mise mar walba in la asturaa waajib ah? ku celi. garka hoostiisa ilaa dhuunta meesha u dhaxaysa. garhka hoostiisa ilaa dhuunta meesha u dhaxaysa. haa, oo dumarka ah ma waxaa la asturaa salaada keliya mise mar walba la asturaa? cawrada oo gabadha muslimadda la doonayo inay asturto waxa weeyaan waa jidhkeedoo dhan, allaahumma wejiga iyo labada kaf, labada gacmood qaybtooda hore iyo wejiga marka laga reebo jidhkeeda intiisa kale inuu cawro yahay waa laysku waafaqsan yahay. labadaas ayaa lagu muransan yahay. salaadda markay ku jirto iyo markayna ku jirin oo ama bannaanka u baxdo ama rag ajnabiyaba ay la joogto, guriga markay la joogto ama bannaankaba ay u baxayso, timaheeda iyo madaxeedu waa cawro, dhuunteeda iyo luqunteedu waa cawro. wixii wejiga ka soo hadhay jidhkeeda waa inay asturto oo ay qariso sida qur-aanka kariimka laga fahmayo, axaadiista nebiguna caddaysay sal alla alayh wasalam. wejiga iyo labada kaf oo gacmaha labadooda qaybtooda hore ah ayaa muran iyo hadal ka jira culimmada, ma inay qarisaa mise way bannayn kartaa.
inay fiican tahay inay qariso waa la isla ogol yahay laakiin ma waajiba baa laga muransan yahay jidhka intiisa kale gabadhu waa inay asturto hadday tukanayso iyo hadday bannaanka u baxayso labadaba wallahu aclam أي سؤال حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ وحويدين لها صلاة أنا يفكتي عندي إيش أمركز علم المولهين قال ما لي جبها هي ما حي تري كسؤالي صلاة صلاة أنا إيجا تكتي عند إيج نعناها قلم يلا إيجا بهاي هاي صلاة أنا أريد هذا عند إيج كحكي ودا حسابتي مادي أيد لكن عادي أنا وان قنقاري تري طيب أنا جو أندر إيج صلاة دي إيجا تكتي أنا أندر إيج صلاة دي إيجا تكتي ما اللي يقولي أي سؤال شيخ عن هالمر إسرائيل ندور سؤال بسم الله شيخ waxaan weydiinayaa gabar la meher xaday waalidkeed oo jooga oo haddana uur ku soo baxay maxaa lagu samayn karaa maxaa meher labaad ma lagu celin karaa waa la meher xaday waalidkeed oo jooga la meher xaday haddana uur baa lagu arkay waxayna tiri ninkaana i mehersaday ilmahaana uurkaan ii yeelay waalidkii muxuu samayn karaa ilmahaas meher labaad ma cusboonaysiini ma maxaa la samayn shiikhuna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ولا شيء waxay tiri wadaadkaygii baa waxaan uga hortagay airportka aniga ciyaalkaygii oo kaadi wax yar aye bilow su'aasha gabadh walaashay waxay tiri waxaan tagay airportka wadaadkaygii oo imaanaya aniga iyo ciyaalkaygii dabadeedna ciyaalkii uu hagsiiyay anna way iga tagay arrinkii waan ka xumaaday markaan ku yiri maxaad igu gashina wuxuu yiri ceeb weeye meelahaas oo kale la iskuma maaragtay salaamo anna aad baan uga xumaaday bay tiri aniga laftigayga ii sheegtay waxaan ku yiri wuu kaa khaldan yahay marka sheekh waa intaa طيب سؤال حكته فضلا عيالك يو دائر تهلا مسيو عيالك يا دائر تهلا مسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ ودن كان جوجنا كينيا نيروبي waxaan noo shaqeeynaa afka saar mikrofon waxaan noo shaqeeyaa naaga madow ah oo muslim ahayn naagahaas guryaha inoo tirtiraan dharka inoo dhaqaan annagana dad muslim ahaan nahoo tukado dharka ay dhaqaan dadkaas ma daahiriyaan dahaarana waxba kama yaqaanaan dharka ciyaalkana way ku dhex dhaqaan dharkaa salaada lagu tukaday maxaa laga leeyahay جزاك الله خير الجزاء aamusa ayr aamusa haddaad hadlaysaan kama jawaabaya su'aalaha haddaad rabtaan inaan su'aalaha idinka jawaabo dhagaysta oo aamusa haddii kaleeto waxa laga jawaabaya idinkuna kama faa'iidaysaan aniguna bilaasha baan isaga hadlayaa marka dhagaysta su'aalaha oo sheekada iyo hadalka daaya su-aasha ah aniga oo under age ah salaadihii iga tegay ma laygu leeyahay under age-ka waxa la yidhaahdo
laba macnuu leeyahay midi waxa weeyaan ruuxu inuusan qaangaadhin waxyaabaha lagu qaangaadhana waa la yaqaanaa rag iyo dumarba haddii ruuxu qaangaadhkii shareecadu ay sheegtay uusan weli gaadhin wixii cibaadaadee ka taga laguma laha haddiise laakiin uu qaangaadhay laakiin ejka ay gaaladu taqaano uu ka hooseeyo 18 bay gaaladu u yaqaanaan under age wixii ka yar bay u yaqaanaan 18na shareecada laguma qaangaadho 17na laguma qaangaadho haddii ayna gabadhu caadada helin rag iyo dumarka ayna mani ka imaanin da'da ay ku qaangaadhaan waa 15 waaye 15 ka hor haddii calaamaadkii kale qaangaadhka uu ruuxu helo uu qaangaadhay waajibaadkiina waa lagu leeyahay cibaadaadkii hadduu ka tagana waa dushiisay saaran tahay haddiise laakiin uu ka yar yahay qaangaadhkii gabadhii weli caadadii kuma dhicin manidii kama imaanin oo biyihii iskumayna arkin mayna gaadhin 15 sano haddayna qaangaadhin sidaa cibaadadii kaga tagtay wakhtigaa isagaa laguma laha le'anna qalinba ma saara ruuxa intuusan qaangaadhin laakiin inta uu ruuxu yar yahay uusan qaangaadhin cibaadada lagu sii tababarayaa carruurta iyagoo 7 jira salaada la farayaa 10 jir markay gaadhaanna ku garaaca buu nabigu sallallahu alayhi wasallam macnaheedu maaha inay waajib ku tahay ee waa loo sii tababarayaa inay sii bartaan oo la sii qabsadaan marka ruuxu hadduusan qaangaadhin waajib kuma aha wixii ka tagana laazima inuu soo celiyo qaangaadhkan ka hadlaynana waa ka shareecada waaye su-aasha xigta meher xadka shareecada khalad buu ku yahay meher xadku guur ma aha maxaa yeelay guurka qarsoon culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inuu uusan saxsanayn nebigeennuna wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam haweenay kasta oo guursata weli la'aan guurkeeda waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jiro guur marka la qarsanayo oo weligii laga qarsanayo oo qaraabadii laga qarsanayo oo lala dhuumanayo waa xatooyo waay tuugnimo waay wax tuugnimo ku yimidna shareecadu ma asixiso saxna ma aha arrintaas soomaalida dhaqanka u ah ee ku badan wax shareecadeennu ogoshahay ma aha waxaa kaleetoo shareecada khilaafsan waxa la yidhaahdo guurka masaafada oo gabadha meeshii ay joogtay inta laga kaxeeyo magaalo kale la geeyo lagu soo meheriyo iyadana sax ma aha labaduba shareecada way khilaafsan yihiin guurka saxda ah ee qur-aanku sheegay sunnada nebiguna sheegtay sal alla alayh wasalam waxa weeye in gabadha ehelkeeda laga doono oo weligeedu bixiyo oo weligeedu guuriyo oo iyadii ninkay guursanaya raalli isku noqdaan oo isku qancaan oo markhaatiyo loo sameeyo oo guur la og yahay oo cad uu noqdo kaasaa guurka saxda ah hadday dhacdo marka oo khaladkaasi dhaco oo ay isugu galmoodaan oo uur yimaado maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa guurku waa khalad ilmuhuse waa sax guurka waa la saxayaa oo guur saxsan ma aha laakiin ilmaha lama dhahayo waa garac lama dhahayo ilmaha waa ilmo saxa leanna ilmuhu sidiisaba wuxuu sax ku noqdaa labada ruuxee isu galmoonaya hadday rumaysan yihiin inay xalaal isugu garmoonayaan intaasaa ilmaha nasabka siinaysa oo ilmuhu uu ku qaadanayaa nasabka aabbihii laakiin labada ruux waxa dhex yaallay isku arkeen ee isugu galmoodeen ee ku wada seexdeen ee guur saxa maaha guurka waa la burinayaa hadday rabaanna dib baa laysugu guurinayaa ilmuhuna aabbihii buu ku abtirsanayaa oo ilmo saxa buu noqonayaa masaladaasi sidaas waay su-aasha xigta oo ah hooyada wadaadkeedii eerbood kaga hor tagtay iyadii carruurtii oo uu carruurtiina dhunkaday ayadiina uu dhunkan waayey kadibna ka xumaatay waxaan dhihi lahaa inaad ka xumaato sax maaha xumaynna ma aha kumuusa xumaynin laakiin maxsharkaasi meesha la wada taagan yahay ee dadku idin wara arkayaan
ayuu ka xishooday inuu kugu dhunkado marka xishoodkuna diintuu ka mid yahay alxayaa min aliimaan buu nebigu sal alla alayh wasalam xishoodku iimaankuu ka mid yahay ruuxaan xishood lahayna diin ma laha marka wadaadku kuma xumaynin kumana necba adaa iska dhaadhiciyey laakiin wuxuu ka xishooday inuu meeshaa kugu dhunkado waxaanan u malaynayaa guriga markaad tagteen inuu kuu qalleeyey oo uu kuu guday oo waxaad ka rabtay inaad ka heshay baan u malaynayaa haddii aadan adugu xanaaqii kula tegin marka arrintaasi waa arrin saxa waaye waxaad iska dhaadhicisayna sax ma aha sidaasaana munaasib ah nebigeennu sala allahu calayh waalihi wasalam asagoo xaasaskiisa jecel haddana meelaha maxsharkee dadku wada joogaan kuma dhunkan jirin xaasaskiisa wuxuuse ku dhunkan jiray siday ummahaatulmu'miniin soo warinayaan guryahooda markuu la jooguu nebigu dhunkan jiray sal alla alayh wasalam marka arrintaasi odaygaagu sameeyey waa sax xumaanna ma aha xumaynna ma aha laakiin waxaa keenaya xishoodkaa keenaya xishoodkuna iimaankuu ka mid yahay su-aasha xigtaa u dambaysa waxa weeyaan dumarka guryaha ka shaqeeya ee weelashay dhaqaan iyo dharka ay dhaqaan ma daahirba jawaabtu waa haa haddii adiga aadan nijaaso ku ogayn jidhkooda asalku waa inuu daahir yahay qur-aanka kariimkuna markuu inoo sheegay innama almushrikuuna najas gaaladu waa nijaasa markuu ina yidhi nijaasada waxaa laga wadaa bimacnaa caqiidadoodaa nijaaso ah laakiin jidhkooda iyo maryahooda asal ahaan waa inuu daahir yahay wixii aan nijaaso lagu ogayn ayagoo sidaasa oo aan iska dhaqin ayaa nebigu la mucaamaloon jiray sal alla alayh wasalam oo bulshada muslimku la mucaamaloon jirtay oo weelashooda la isticmaali jiray oo dharkooda la isticmaali jiray waana meelaha bini aadamka shakiga iyo waswaasku ka soo gala waaye shareecadeennu waxay ku leedahay waxaad hubto ood arkaysay oo nijaaso ah adiga wax ku qaybso wixii aadan hubin way isku xaartaa iyo way isku kaadidaa iyo kaayada iskama dhaqda iyo hawl kuu taalla ma ah adiga hawl kuu taalla ma ah midda labaad maryaha laysku dhaqayo oo carruurtii maryahoodii iyo dadka maryahoodii baa laysku dhaqayaa haddii la dhaqayso daahir ma wada noqonin biyahan la wada geliye lagu wada dhaqay xataa hadday qaar nijaaso yihiin soo islama daahir noqonin marka maryaha laysku dhaqayoo qaarna nijaaso yihiin oo carruurtu leeyihiin qaarna ay dad waaweyn leeyihiin wax mushkilaa ma laha wax mushkilaa ma laha leanna biyaha la geliyey way dhaqeen haddana biyaha laga raaciyey way daahiriyeen dharku marka daahir waaye weelashay dhaqeen daahir waaye ayaga wixii nijaaso eed ku aragta gacmahooda ama jidhkooda saaran unbaa la dhahayaa waa nijaaso laakiin iyaga laf ahaantooduna nijaaso ma aha dharkooduna nijaaso ma aha waxay dhaqaan nijaaso ma aha waxay daahiriyaanna waa daahir in sha allahu tacaala wallahu aclam haddana saddex su-aaloo kale oo xigta ayaanu israacinaynaa mikrofoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan waxay daba socotaa su-aashii hore oo ahayd dumarka guryaha ka shaqaynaya waxaa laga yaabaa guryaheenna inay ka shaqaynayaan dumar aan muslin ahayn isla markaasna qoorteennii iyo madaxeennii ay arkayaan balse qaarkeen waxaa laga yaabaa koofeerada markaanu tagno inay timaha noo hagaajiyaan ama masaajkan waxa la yidhaahdo ama riixriixa oo kale ay noo sameeyaan marka taas maxay diinteennu ka qabtaa midda koowaad su-aasha labaad dumarka codkoodu macawra codkoodu macawra markaan leeyahay inay qaylinays keliya ma aha sida muxaadaraadka oo laga yaabo iyo barnaamijyada ay dumarka samaynayaan inay dumarkii keliya aysan fiirsaninoo ama youtube ama snapchat ama tiktok la geliyo marka waxaan rabaa sheekh labadaas su-aalood jazaaka allahu khayran asalaamu calaykum baarak allahu fiikum su-aasha kale su-aasha kale fadlan
su-aasha kale ayib sheekh masalada ku saabsan dumarka gaalada gabadha muslimadda jidhkeeda maxay arki karaan maxayse taaban karaan waa masale khilaaf laba meelood oo qur-aanka ka mida ayaa waxaa ku soo aroortay markii laga hadlahayay dumarka ragga aynan ka qarsanaynin jidhkooda qaybaha loogu talagalay ee maxramka u ah markii laga hadlayay ayaa waxaa lagu daray aw nisaa'ihinna dumarkoodaa la yidhi halkaasaa culimmada qaar waxay ka fahmeen dumarka muslimaadka ah yaan cawrada laga qarsanaynin laakiin dumarka gaalada ah ayaa aayadda laga fahmayaa in ay tahay sida ragga ajnebiga oo kale in cawrada laga qarsado culimmada qaar baa ka fahmay aayaddaa culimmada qaar ka midana macnaheeda si kaley u fahmeen masaladu marka waa masale khilaafiya laba gooraba gabadha muslimadda ah jidhkeeda qaybaha sida qaalibka aan bannaanaanin gurigeeda markay joogto sida qaalibka ah qaybta aynan bannaynin gurigeeda markay joogto dumarka gaaladaa inay u bannayso ma aha oo maalan muxuu ahaayey guriga marka la joogo sida qaalibka ah luqunta iyo timaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo way iska bannaanaadaan laakiin qaybaha kale jidhka daakhilkaee gudaha ah inay naag gaal ah ay u muujiso ama meel dumarku isku qurxiyaan ha joogto ama meelaha masaajka ha joogto ama gurigaagaba ha kula joogto inaad u muujiso sax ma aha maxaa yeelay waa gaalo waxba kama dhowrsoona diini ma celinayso akhlaaqi ma celinayso inay jidhkaagii sifayso waa kii nabigeennu laha sal alla alay wasalam haweenayda muslimadda mid muslimadoo kale yayna la baashirin oo yayna fiirinin si ay jidhkeeda ugu sifayso ninkeeda ama rag kaloo ajnabiga ugu sifayso marka maadaama ay gaalo yihiin jidhkaaga inta aad qaybihiisa gaar ahaan inta badan asturan inaad ka ilaashato ood ka asturato xataa guriga hadday kula joogto ayaa fiican oo runtii ay ku jirtaa dhaqan wanaagga iyo anshaxa iyo xishoodka uu ku jiraa wallahu aclam mas'alada labaad waxa weeye dumarka codkooda ama sawdkoodu ma cawra mise cawro ma aha bimacnaa ragga ajaanibtii ma dhagaysan karaan dumarka codkooda ama sawdkooda jawaabtu waxa weeye culimmadu waxay u badan yihiin dumarka sawdkoodu inuusan cawro ahayn inuusan sawdkoodu cawro ahayn oo ragga ajnebiga ah ay dhagaysan karaan haddii aamin laga yahay fitno aamin laga yahay maxaa yeelay wakhtigii nebiga sal alla alay wasalam dumarku ragga waa la mucaamaloon jireen waa dhagaysan jireen keliya waxaa la diiday uun hadal dabacsan oo fidno keenaya ama shahwada kicinaya inay ku hadlaan falaa taqdacna bilqowl wayatmaca aladii fii qalbihi marad yacni hadal dabacsan oo ninka qalbiga ka jiran shahwadiisa kicinaya unbaa loo diiday laakiin hadalka caadiga waqulna qowlan macruufa hadal caadiya way ku wada hadli karaan ragga way la mucaamaloon karaan waxbay ka iibsan karaan maxkamaddii bay tegayaan codkoodaa la dhagaysanayaa darsi bay bixin jireen oo raggu ka qaadan jireen marka taa mushkilo ma laha amaa gabadha codkeediina in la dhagaysto suuradeedii wejigana la arko middaasi waxay ku xidhan tahay kolba baahida loo qabo haddii baahi loo qabo markaasi mushkilo ma leh fitnana markaa ayna ka dhalanaynin wax dhiba ma laha haddii fitno laga baqayo markaas oo wejigeedaas muuqdaay ay fitno ka dhalan karto markaasi waxa weeye dar'an lifitna markaasi ma bannaanaanayso marka waa masalo ku xidhan masaalixda iyo mafaasiidda ku xidhan waaye iyo maxaa ka dhalan kara laakiin asal ahaan iyaduna waxay u noqonaysaa dumarka wejigoodu ma cawraa mise cawra ma ah waase masaladii khilaafiyada ahayd bay iyaduna u laabanaysaa hadda wakhtigan la joogo iyo social mediaha iyo dagaalka ka socda gabdhaha muslimaadka ah ayagoo asturan oo jidhkoodu asturan yahay in ay dagaalka xaq iyo baatilka ee social mediaha ka socda ee weliba dumarka lagu duufsanayo in ay khayrka ka faafiyaan oo ay dagaalka wax ka galaan oo ay dumarka
duufsanaya ee kharribaya ay la dagaalamaan oy dacwada iyo khayrka iyo wanaagga ka faafiyaan waa loo baahan yahay oy cilmiga ka faafiyaan oo ay dumarka gaadhsiiyaan risaalada khaaska ee loogu talagalay arrintaasi waa muhim waaye casri walba iyo wakhti walbana wuxuu leeyahay yacni waxa weeyaan xaaladdiisa iyo axkaamtiisa khaaskaa buu leeyahay marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha muslimaadka ah idinkoo dhowrsoon oo asturan haddana wixii xaqa ee dadka aad gaadhsiin kartaan cilmiga shareecada khayrkoo la faro xumaantoo la reebo gaadhsiiya in sha allahu tacaala wallahu aclam su-aasha xigta maamada hadda maamadii hadda su-aasha dhagta iigu sheeganaysa waxay tidhi annagoo baadiyo joogno wadaadkayga hadalan aada uga xanaaqay dhahay wuxuu yidhi nijaas dhashaa tahay cuqdad baan qalbiga kaga qaaday waxaana muddo raadinaya inaan ogaado xukunkeeda sharciga ay diinta islaamka ka qabta inuu qofku saa ku dhaho su-aasha labaad asalaamu calaykum sheekh waxaan rabay inaan ku weydiiyo bishii 2 jeer waxaan tagaa qabriyaha anoo isle bal naftaada xasuusi inaa one day halkan imaan doontid marka ma dembi bay igu tahay su-aasha kale qabriyaha aan tagaya 2 walaalahay baa ku aasan waan u duceeyaa marka ayaga miyay maqlaan dadka yani miyay maqlayaan intaas baan rabay nacam su-aasha saddexaad bismillah su-aasheedu waxaa waaye ilmo aan walaalo ahayn baa wiil walaalku intay shirqooleen bay kow ka siiyeen marka aniga xiriirkiina waan jaray ma xiriiri mana salaami marka shareecada islaamka maxay ka dhaheen su-aasha labaad maamo eedaday ah oo xanuunsan maskaxiyan xanuunsan ayaa gabar 5 jir ah aan ka qaadanay marka gabadhii aabaheed waan ka siweynay aabahay hooyaday soo korsatay aabahay magac loo dhigay maadaama Kenya la joogo oo documents loo baahan yahay school loo baahan yahay aabahay mana dhalin gabadhii hadda gabar weynaatay oo waxa waaye waa la qabaa marka sharci islaamka muxuu ka leeyahay جزاكم الله خير جزاء أحسن إليكم su-aasha gabadha ay weydiisay ninkeedu uu caayay ama uu hadalka xun ku sheegay nijaas dhashay baa tahay waa hadal xun oo cay ah oo aflagaada ah nebigeennuna sal alla alay wasalam wuxuu sheegay ruuxa muuminkaa inuusan caytamin oo lacnadda iyo caydadu ma aha dhaqan ruux muslima ma aha marka inuu iyadii caayo xaaskiisa ah haddana waalidkeed caayo oo ciddii dhashayna uu haddana nijaaso ku sheego waa hadal aad u qallafsan oo edabdarro ah waana dembi weyn waaye amaa iyaga xidhiidhkii ka dhaxeeyey iyo xadhiggii ka dhaxeeyey iyo inay nin iyo xaas isu ahaayeen waxba ma yeelayso oo caytanka ama ninku xaaskiisa caayo ama iyadu ay ninkeeda caydo waa uun dembi weyn laakiin guurkii ka dhaxeeyey waxba ma yeelayo marka isaga unbay u baahan tahay inay iyaduna cafiso dadkii kale uu caayayna uu cafi weydiisto ilaahayna u toobad keeno taa mid weeye midda labaad gabadha qubuurta siyaarata bishii 2 goor ma bannaan tahay jawaabtu waxa weeye xadiid baa jira uu nebigu leeyahy sal alla alay wasalam lacana allahu zawaaraati alqubuur lacnadda ilaahay ha ku dhacdo dumarka siyaarada qubuurta ku noqnoqda oo badsada sida saxiixa ah dumarku qubuurta way siyaaran karaan iyagoo u siyaaranaya inay dadka muslimiintaee dhintay u soo duceeyaan dhanka kalena in qalbigooda ay ku soo jilciyaan way soo siyaaran karaan laakiin inay badsadaan ma aha muddo markaad joogto oo mar soo siyaaro laakiin ha badsanin sida xadiidkaa laga fahmayo qodobka xiga
وإسلا سؤال شاسا dad ehelka ah oo meesha ku aasan oo ay u soo ducayso sax weeye waa u soo ducayn kartaa sida xadiista nebiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam laakiin ma ku maqlayaan ayaga markaad salaanto salaantii ma kaa qaadaya waa mas'ala khilaafiye waa axaadiista qaar baa laga fahmayaa inay salaanta ay maqlayaan qaarna culimadu yihiin maqalka soo arooray dadka dhintay inay wax maqlayaan waa xaalada khaas ah weeye mar walba ma aha qaarna waxay leeyihiin cid kastoo u tagta way maqli karaan markay salaamaan waxaana laga qaadan bay leeyihiin khitaabka marka loo tago qubuurta assalaamu calaykum baa la leeyahay assalaamu calaykum sidii ruux ku maqlayoo kale loo salaamo oo kale ayaa loo salaamaya oo loogu ducaynaya marka waa masale khilaafiya weeye culimmaduna qaar waxay leeyihiin waa maqlayaan qaarna ma maqlayaan xaaladaha qaarkood inay maqlayaan nas cad baa ku soo arooray oo maalan marka la aaso intaan laga kala tegin in la soo noolaynayo oo uu maqlayo dadka shanqadhooda taa iyada nas cad baa ku sugan laakiin siyaarada caadiga marka la su'aalo xaaladaha kale ma ku maqlayaan mise kuma maqlayaan waa masalo muran ku jira weeye laakiin laba gooraba ama ha ku maqlaan ama yaysan ku maqline ducadu way gaadhi insha allahu tacaala muhiimadduna waa intaa wey inaad u ducayso salaanto ducaduna gaadho insha allahu tacaala masalada xigta nimanka dilay walaalkood gabadhuna ay goysay in ruux muslima la dilo kas loo dilaayay waa dembiyada ilaahay laga galo shirkiga marka laga yimaado dembiga xiga waaye qur-aanka kariimkaana waa ka ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala ruuxaas inuu naarta ku ilaahayna u cadhooday laakiin dadku ma gaaloobin ruuxu hadduu ruux muslima dilo cala asaxiix ma gaaloobina waa muslim hadduu muslim yahayna inaad goyso ma aha nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam ruux muslim ah muslim kale inuu gooyo ka hijroodo ma bannaana 3 beri wixii ka badan marka khalad way galeen naf bay gooyeen yacni wax weeyaan ilaahay baa kala xisaabtami adiga laakiin qaraabanimadii iyo wixii idinka dhaxeeyey xidhiidhi oo ha goyne su-aasha xigta oo ah gabadha laga soo qaatay ehelkeedii oo la korsaday oo kadibna aabbaheed aabba aan ahayn sharciga loogu gooyey oo waddan la joogo kenya oo kale ah haddana weynaatay oo reer yeelatay ma dhib baa ku jira sharciga iyo dukumentiga in lagu goosto magacii aabbaha magacaan ahayn iyo waxaa kala duwan oo taliba xuquuq inaad soo cid aan aabbaha ahayn haddaad abtirkaagii oo dhan beddesho oo aabbaha cid aan ahayn ku abtirsato oo xuquuqdii aabbannimo aad cid kala siiso markaasi waxa weeyaan waa dembi aad u weyn dunuubta waaweyn bayna ku jirtaa ee cuquubadu iyo ee ku soo aroortay waciidka iyo hanjabaadku ku soo aroortay laakiin hadday tahay uun dukumenti baa loogu sameeyey laga maarmaan ah aabbaheedna looguma samayn karin meesha ay markaa joogto laakiin aabbaheed dhalay baa aabbaheeda xuquuqdii aabbannimay ogoshahay abtirkeedii rasmiga waa kaa keliyata uun dukumenti ay ku noolaato basaa loogu sameeyey hadduu yahay markaasi wax dhibo weyn ma leh waa arrin duruuf ay keentay ama daruura keentay wax dhibaato ah markaa ma leh laakiin abtirka dhan in la beddelo markaasay halis tahay oo axaadiista nebigu sal alla alayh wasalam ay diiday oo ay ku soo aroortay inay xaaraam qaطciya tahay wallahu aclam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa rabaa inaa weydiiyo sheekho saddex su-aal midda koowaad waxaa waaye shaqada laga shaqaysto waddada oo waratada camal oo barabaraha ma xalaalba mise waa xaaraam tan labaad dhooliida calaamadaha caaga oo dhooliida oo dhisbaleyga dharka lagu dhisbaley gareeyo oo sawirka ah
dharka in oo la geliyo oo lagu ganacsado ma xaaraan baa misna waxaan sameynaa marmar waa ka bixinaa waa qaawinaa marka wixii ma sidii cawro camal aan u asturnaa mise wax dembiya ma lahan midda saddexaad waxaa waaye yacni aaladahan tiktoka ama youtube-ka xayisiinta oo dharka lagu xayisiiyo kale sida adoo kale haddaa ka xishootid inaa yacni isku xayisiisid ama qof aad soo kireysatid ama qof walaalkaada ah inuu kuu xayisiiyo uu aaladaha kuu geliyo ma kuugu xaaraan baa ganacsigaas mise waa xalaal cafwan hal kala rabaa afaraad sikada oo hantida laga sikeynaayo deenta lagugu leeyahay ma ka sikeynaysaa ma sikey gelaysaa mise xoolahaadii aa xisaabinee deentaa ka jaree kabacdi wixii soo haraa sikeynaysaa asalaamu calaykum waraxmatullah nacam saa-isha kale saa-iladda kale نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم لبا سؤالود بان شيخة ويدينا يا مدة وهالرئيسة ناق شقالة سي نوغو شقيني سي اسكا تقطي كدب لعقتي ما وايكوسو نقوم بوالا أنا إلى هذا كان لباد هدان حنوني عاجز دريمو صلاة هدان فريقة كدو كدو يعني دادكي إلهي نعضلي أو يعني صلاة واجب مية مسوا سنة su-aasha ku celita ugu dambaysa ayib saa-iladda ugu dambaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekha waxaan weydiinayaa laba su-aal su-aashayda koowaad waxay tahay salaada subax anoo tukanin baa la galay hortayda ayna sunnadii anoo tukanin baa salaadii iga hor dhacday marka sunnadii ma qasab baa inaan hormariyo kadib salaaddii la imaado mise salaaddii waajibkaan tukadaa tan labaad sharciga oo maxaa la dhihi jiray baasaboorka waxaa igu qoran magacaan magaca aabbahay ahayn marka ma lagu xajin karaa dad baa waxay igu yidhi kuma xajin kartid waa inaad magaca aabbaha ku goosataa marka magacaan magaca aabbahay ahayn xashka ma ku aadi karaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu جزاكم الله خيرا شيخنا كسودو بسم الله سؤال شكو سابسن شقدا موسى بارك الله فيك موسى شقدا ودوينكا لمريو ee loogu talagalay inay dadku maraan ama gawaadhidu maraan in lagu shaqaysto ma bannaan tahay jawaabtu waa maya masaladaas si fiican u dhegaysta culimmada muslimiintu masalada waqti horey ka hadleen alimaamu axmed iyo a'immadii ka horraysay iyo kuwii ka dambeeyeyba way ka hadleen waddooyinka la marayo dadweynaha iskale waxaa loogu talagalay in la maro sidaas daraaddeed cidina si gooniya uma milkin karto uguma ganacsan karto uguma shaqaysan karto ma goosan karto dadkii marayay iyo baabuurtii maraysay loogu talagalay ma cidhiidhyi karto wixii loogu talagalay oo ah dadku inay maraan keliya tan baa loo isticmaali karaa culimmada muslimiintu saasay leeyihiin waxayna ka dhigan tahay bay leeyihiin markaa dadkii oo maraya intaad dukaan ka samaysato ama miis dhigato sidii adigoo dhacay oo kale ka dhigan tahay dhul aad dhacday adiga oo ku ganacsanayoo kale ka dhigan tahay arrintaana waxaynu ka dareemi karnaa xaafaddan islii iyo xaafadaha kale lagu ganacsado dadkii meelay maraan bay laayihiin gawaadhidii iyo dadkii baa isdilaya bikibikidii baa dadkii ku dhacaysa dhulkii loogu talagalay in la maro bini aadanku maraan oo dhan baa miisas la dhigto oo ganacsi laga dhigto sidaas daraaddeed goobahaas in lagu ganacsado sax ma aha waa qalad
baahida jirta iyo duruufta jirta anoo og oo dad fara badan iyo hooyooyin fara badani biilka ay meesha ka soo saaraan oo ay carruur ku koriyaan oo duruuf adag ay jirto waddanka iyo dadka haystaan haddana mafaasid kaloo fara badan bay xambaarsan tahay talagalay in la maro dhigto ama dukaamo ama laga dhigto miisas ganacsi in laga dhigto masaladaasi sidaas wey su-aasha xigta oo ah bahashan la yidhaahdo dhoolida iyo dharka in lagu xayeysiiyo ama dharka la sudho mid waa xaaraan dhoolidu hadday madaxii bini aadamka leedahay oo madaxii ay wadato markaasi waxa weeyaan waa sawir waaye sawirka taaganna inuu xaaraan yahay waa laysku waafaqsan yahay oo nusuustii nebiga ka sugnayd oo lacnadu ku soo aroortay sawirka taagan waa laysku waafaqsan yahay iyo ka gacanta lagu sameeyo taas waa sidaas weeye haddii madaxa laga gooyo oo aysan madax lahayn nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam suurada ama sawirku waa madaxa haddii madaxa la jaro markaa sawir ma aha laakiin dhanka kale haddana dhibka ay leedahay wax weeyaan bini aadan baa loo ekaysiiyey hadday dumar tahayna naasihii iyo cawradii iyo wixii baa muuqda hadday rag tahayna sidoo kale waa loo ekaysiiyey wax marka fool xun oo anshaxa iyo xishoodka iyo xushmadda aan ku fiicnayn waay oo muxuu ahay runtii akhlaaq xumo ah haddii laga maarmi waayo kuwa aan yacni wax weeye lahayn xubnahaasi bini aadamka aan lahayn haddii la heli karo ha la raadsado haddii laga maarmi waayona ha loo geliyo mara ha loo geliyo laakiin in la qaawiyo oo xubnihiina muuqdaan suuradii bini aadamkana leeyihiin arrintaasi culimmada muslimiintu waxay leeyihiin waa khalad shareecada khilaafsan oo aan bannaanayn su-aasha xigta oo ah xayeysiinta social mediaha wax lagu xayeysiisto ma bannaan tahay jawaabtu waxa weeye haa laakiin maxay ku bannaan tahay waa inaan laga been sheegin waxa aad xayeysiinayso waxa aad xayeysiinayso xaqiiqadiisa waxaanayn haddaad ku sheegto ama buunbuuniso oo wuxuusan ahayn aad ka dhigto waxaad noqonaysaa ruux been ka iibiyey dadka marka waxa weeye xayeysiin laakiin shaygaad xayeysiinaysa xaqiiqadiisa ha ka been sheegin waa mid qodobka labaadii waxa weeye oo iyadana muhimka ah cidda xayeysiinaysaay waa inay anshaxa iyo asturka ilaalisa waaye dumar inay isqaawiyaan oo wax lagu xayeysiiyo dhaqan islaam ma ah laakiin hadduu nin kuu xayeysiiyo oo markaasi aan cawradiisii muuqanini dhib ma laha shayga la xayeysiinayana uu yahay shay aan laga been sheegin waxay la mid tahay telefishinka lagu xayeysiinayo joornaalada lagu xayeysiinayo social mediahuna kuwa unbuu la mid yahay marka uun shayga la xayeysiinayo qaabka loo xayeysiinayo haddii la ilaaliyo dhib ma laha marka insha allahu tacaala su-aasha xigta sakada daynta lagugu leeyahay ee adiga dad kugu leeyihiin saka ma ka waajibaysaa jawaabtu waa maya ruuxii kugu lahaa baa sakadeeda lagu leeyahay laakiin adiga laguguma laha sideedaba sakada marka la bixinayo daynta lagugu leeyahayna waa laga jaraa daynta adigu dadka aad ku leedahayna waa lagu sidaasaa laga sakeeyaa marka daynta lagugu leeyahay markaad sakaynayso waad iska reebaysaa ciddii kugu lahayd baa ka sakaynaysaa adiga lagaama rabo inaad ka sakayso ya haa gabadha shaqaalaha ah ee mushahaarkeediiyo xaqeedii ka tagtay kadibna la waayey waa in xoolihii ay ka tagtay la sadaqeeyo waay markii laga quusto oo lays yidhaahdo ma soo noqonayso oo laga rajo beelo soo noqoshadeeda ama helitaankeeda wixii xaqeeda ahaa waa la sadaqaynayaa masaalixda caamkaa baa lagu bixinayaa ceelasha isbitaallada waddooyinka goobaha waxbarashada masaakiinta halkaasaa lagu bixinayaa oo muxuu ahay aad isaga bixinaysaa insha allahu tacaala
salaada haddii aan caajiso salaada fadhiga ma ku tukan karaa nabigeenna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastadic faqaacidan haddaad istaagga kari weydo fadhiga ku tuko maaha waan caajisay maaha waan caajisay ama waan ku yar rafaadi maaha haddaad kari weydo haddaad taagnida kari weydo fadhiga ku tuko haddaad fadhigii kari weydana adoo dhinac u jiifa tuko shareecadeennu waa fududaysay laakiin waa yaro caajisanahay waad istaagi kartaa laakiin waa yaro caajisan tahay inaad fadhiga ku tukato laguma ogola salaaduna ma asaxayso salaaduna ma asaxayso gaar ahaan hadday salaadu tahay salaad waajiba hadday tahay hadday salaad sunna a tahay fadhiga waad ku tukan kartaa adoo istaagi kara salaada sunnaha fadhiga waad ku tukan kartaa keliyata uun ajirkaaga unbaa isdhimayo nis baa lagu siinaya ajirkii taagnida aad ku heli lahayd ajir ka yar unbaad helaysaa salaada sunnaha ah haddaad fadhiga ku tukato adoo istaagi karoo dhibaato qabin amaa salaada waajibka ah sinama fadhi looguma tukan karo allaahuma inaad taagnida kari weyda mooyaane su-aasha xigta waxa weeye haddii salaaddii la aqimo anigoon sunnadii fajarka tukanin labadii ragcadood ee salaadda subax ka horreeyey anigoon tukanin haddii salaaddii subax la aqimo maxaan sameeyaa laba mid waaye haddaad masaajidka joogto amaad masaajidka la tukanayso salaadda loo aqimay baad la tukani imaamka kadibna marka salaadda laga baxo kadib ayaad labadii ragcadood tukani waa haddaad imaamka la tukanayso ood masaajidka ku tukanayso haddiise gurigaaga aad ku tukanayso salaadda la aqimay waxba kaama gelin sunnadaadii baad tukan sunnada markaad dhammaysatana waajibkaagii iyo salaaddii subax baad tukanaysaa oo tartiibkii baad u tukanaysaa sunnadaad hormarin salaadda subax baad kadib tukanaysaa haddiise masaajidka aad la tukanayso waa inaad imaamka markaasi waxa weeyaan aad salaadda la gasho oo salaaddaa la aqimay aad la gasho leanna nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam salaadda haddii la aqimo salaad sunna a ma jirto ilaa midda la aqimay mooya salaadda la aqimay waajibka unbaa la gelayaa marka imaamkaad la geli markuu ka baxana dib baad sunnada kala imaan haddaadan imaamka la tukanin oo gurigaaga ku tukanayso sunnada tuko kadibna labadii ragcadood ee salaadda fajarka ka dambaysay oo tartiibtaada u tuko xigta dukumentiga ama baasboorka magacaagu uusan ku qorayn ama waalidkaa magacaan ahayn baa ku qoran oo waalidka magaciisaa khaldan ama magacaaga laftiisii baaba khaldan oo magac kale aad wadataa baasboor uu ku qoran yahay ma lagu xajin karaa jawaabtu waa haa leanna asal ahaanba xajka baasboor looma shardiyeeyaba xajka ilaahay shuruuddu u dejiyey baasaboor ka mid ma aha mar hadduusan baasaboor ka mid ahaynna magac baa khaldan iyo magac baa saxsan iyo wax macnoy samaynaysa ma jirto xajka shuruudiisana ka mid maaha waajibaadkiisana ka mid maaha yacni manhiyaadkiisana iyo maxduuraadkiisana ka mid maaha waxba yeeli mayso magac baa khaldan kaaga ha noqdo ka waalidka ha noqdo xajku waa asaxaya in sha allahu tacaala waana lagu xajin karaa dukumentiga ama baasboorka noocaas oo kale ah wax dhibo ma leh wallahu aclam جزاك الله خير جزاء وأحسن إليكم فضيلة الشيخ شيخنا dad badan baa waxay soo codsanayaan duco dad baa xanuuno badan sheeganaya gabadh kansar aad ah uu hayo iyo reer wiilkoodii maaragtay dhimirka uu wax ka noqday iyo dad aad iyo aad maaragtay dhammaantood u wada jiran dad raba in awlaad loogu duceeyo iyo maaragtay dad badan oo kala duwan oo danooyin sheeganayo marka waxay codsanayaan in sheekhu inaad u ducayso kusoo dhowow baaraka allahu fiikum بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. إلهي قلوبتنا خيرك هجعليسيو، إلهي خير ودن هينو فضوديو، وحي الشر ودن الله ينقى حجابو. انت جرن إلهي عافمات دقدق حسيو، انت دباتيسن إلهي دباتدها كقادو، انت عديدك كجرت إلهي وسعي الله أقبدلو، انت كربيسن إلهي كربدها كقادو، انت ديميسن دينت الله كفضوديو، روح المراد كيسا خاصك الله فضوديو، إلهي خاتمدها ينو هقاتشيو. مالين كان لمننا قبورت الله ينو واسعيو، إلهي هينو نوريو، إلهي جندي سهينا جي عذاب كيسا الله ينو حفظيو، هو عرشي سهر صدا الله ينو درو. فتنة قبرك هي فتنة قيامة الله ينو إلاليو، إلهي عدديسا هي عقوبتيسا لبضب الله ينو إلاليو. إلهي جندي سويدي سننا عذاب كيسا وكما قالينا أدونك إنتان شوقنا الله ينو حفظيو. قريها الله ينو حفظيو، دينتا الله ينو حفظيو، عرورتا الله ينو حفظيو، أولاد الله ينو حفظيو، شؤون تاني أرميهن رمانتو الله ينو حفظيو. أدون كان فدنيسن إلهي فدندي سهينا قسمة بحيو. مسلمين تا انتي دنتي والدي إهلهانا الله نحرستو. انت تجون الله إلهي حفظيو، فتنك الله كحفظيو. إلهينا تبارك وتعالى سيدو ميشن نوو كل ميي جندي سفر دوس الله نوو كل ميو. عذاب كيسي عددي سنة الله ينقى إلاليو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.